wiil ayaa aabihii u yimid waxauna ku yiri aab waxaan rabaa inaan guursado oo aan meel gooni ah dego maadaama aan nin weyn noqday aabihii ayaa yiri ma xuma balse gabadhii ma soo heshiiseen oo ma haysataa gabadhii aad guursan lahayd wiilkii waxa uu ku yiri haa aabe waan haystaa aabihii ayaa ku yiri keen gabadhii aan arkay wiilkii waa soo baxay oo gabadhii ayuu soo doonay dabeedna aabihii ayuu u keenay markii ay soo ag fariisteen ayuu ku yiri maandhay qof ma ku dhalay yacni aabaha waa kuma taasoo caado u ahayd badiba dadka waaweyn waayo waxa ay aaminsan yihiin dadka waaweyni gabar lama guursadee reerkeeda ayaa la guursadaa gabadhii waxay u sheegtay aabaheed magaciisa iyo weliba reerkeeda waa uu aqoonsaday waxa uuna ku yiri maandhay aabba lug baa jabneede ma u kabantay markaas bay ku tiri maya adeer oo aniga ayaa suuliga ama musqusha middaa u taqaanba geeya waxa uu ku yiri haa allah u caafiyo wiilkii oo ag fadhiyey ayaa soo booday oo ku yiri aabbahaasoo kii caadi u socday maxaad beenta u sheegaysaa aabbahay labadoodiiba way ku qosleen wayna ka aamuseen iyagoo aan wax jawaaba siin mar kale ayuu aabbihii gabadhii weydiiyey oo adeer aabbe indhayari baan ku ogaaye ma loo fiiqay gabadhii ayaa tidhi maya adeer oo aniga ayaa toosh u ah ama karbuuno uu ifsado odagii mar kale ayuu yidhi haa allah u boogadhayo caafimaad wanaagsanna allaha siiyo wiilkii ayaa mar kale weydiiyey gabadhii aabbahaa goormee indhabeelay sookii dawaarka ama harqaanka tolayey mar kale ayay ku qosleen oo odaygii ayaa ku yidhi soco gabadha ii wad oo gurigii ii gey markaa geysana ii imaaw wiilkii isaga oo yaaban ayuu gabadhii soo waday markii uu gurigeedii keenay ayuu dib u soo laabtay isaga oo degdegaya si uu aabbihii u weydiiyo hadalladii uu fahmi waayey oo ay gabadha isweydaarsanayeen markii uu aabbihii u yimid ayuu ku yidhi aabbe ma fahmin waxa aad gabadha kala hadashay aabbihii ayaa yidhi wiilkaygiyow gabadhan way kula dhaqmi kartaa waana gabar wanaagsan inta aan ka arkay balse adigu ma dhaqi kartid waayo waan ku aqaanaa wiilkii ayaa yidhi aabbe ma doqonnimo ayaad igu ogayd mase asaagay ayaan ka liitaa waxa uu yidhi wiilkaygiyow gabadhan aabbaheed lug baa maqan oo yacni wiil ma dhalin gabadhaanna ayada ayaa wiil iyo gabarba u ah waa tii ku lahayd aniga ayaa musqusha geeya ama suuliga ee adigu haddaad guursato booskeeda ma buuxin kartaa oo reerkii wiil ma u noqon kartaa wiilkii wuu aamusay waxna hadala kama dhihin su'aashu uu aabbihii weydiiyey mar kale ayuu aabbihii ku yidhi wiilkaygiyow gabadhan aabbaheed waa indhayar yahay oo yacni xoola ma leh waa cayr siday gabadhu kuu sheegtay iyada ayaa toosh u ah uu iftiinsado oo xoole iyada uu ka hela mooyaane kuwa kale ugama horreeyaan ee adigu xoola muu haysaa wiilkii waxa uu yidhi aabbe waan ka soo fakerayaa waana uu ka soo tegay aabbihii mar uu dhowr maalin ka maqnaa ayuu u soo laabtay isaga oo boorso lacaga wata waxa uuna ku yidhi kaale aabbe ila doon gabadhii aabbihii ayaa yidhi xaggeed lacagtan ka keentay waxa uuna ku yidhi aabbe xoolihii dhammaa oo aan lahaa ayaan soo gaday oo soo muraadeeyey si aan u helo gabadhaa aadka u aqliga badan wiilkii iyo aabbihii waa is soo raaceen waxa ayna soo aadeen ciddii gabadha waana lagu soo daray sidaas ayuuna wiilkii ku helay gabadhii caqliga badneed kulana guri galay sheekadan waxa aan ka baran karnaa laba waxyaalood tan koowaad waxa ay tahay in aadan samaynin wax aadan kala tashan dadka kaa horreeyey sida waalidka iyo ehelada iyo sidoo kale in qofka garaadka dhaqanka iyo wanaagga leh caqabadaha ku hor aadan ee loo huro haddii sheekada halkan aad soo gaartay waxa kaa codsanaynaa inaad noo sii sheergaraysid qaybta commentigana wixii faallaha aad noogu reebtid ogow muuqaalkana laygta ama loofka way socodsiisaa